maalintii sabtidii ay taariikhdu ku beegneeday 2 Jamaadul Awwal 1441 hijriga mujaahidiintu waxay weerar ka fuliyeen halka loo yaqaano Ex Control Afgooye ee magaalada Muqdisho. halkaas waxay mujaahidiintu weerar kula beegsadeen koleeyo cadow ah oo isugu jirta shisheeye Turki ah iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo iyaga ilaalo u ahaa. weerarkaas koleeyadii lala beegsaday waa uu haleelay khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac ahna wuxuu u geystay Turkidii duulaanka ku ahayd ummadeenna iyo maleeshiyaadkii ridada ee ilaalada u ahayd. dhanka kale weerarka ayaa khasaare naf iyo maalba isugu jira gaarsiiyey dad muslimiin ah oo la kulmay xilligii weerarka uu dhacay. waxaana aad iyo aad uga xunnahay khasaaraha ka soo gaaray ummadeenna muslimka ah ee Soomaaliyeed. waana ka tacsiyeynaynaa dhammaan dadkii muslimiinta ahaa ee halkaas naftooda ku waayay ama ku dhaawacmay ama hanti ay uga burburtay. intii naftooda ku weysay waxaan leenahay shahaado Allah subxaanahu wa ta'aala ha uga dhigo oo jannadiisa Allah subxaanahu wa ta'aala ha ku abaalmariyo. eheladooda sabar Allah ku irsaaqo. intii ku dhaawacantay Allah subxaanahu wa ta'aala ha u boogadhayo. intii hantidooda ku weysana بدل خير قبه الله سبحانه وتعالى تاسنا واتنقو بحسي إن الأتعسيين وددكنا مسلمين قدر إلهي وأنا جيرين إدعالين كرته أي يكون عضي إن قاديد كددكاس مسلمين هاي سهرايين وعادوا كحيري كونترولك سيو قاشان كغادكتو تاسوك أنتي إن يكون بيغانتو حلقي أي مجاهدين تباكسانايين كلا يدع عادوا التركية إيا مرتدين لسعوتي سيداس ayay dhibaatadaasi ku soo gaartay dadka muslimiinta ah.